بسم الله الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. maanta waxaynu eegaynaa laba duco ama laba cibaado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa meel sare ka jooga, fadli badanna leh, addoomahana fawaa'id badan u leh, kuwaasoo ah dikriga iyo ducada. waxaynu eegaynaana labadaa cibaado keebaa fadli badan, ma ducadaa fadli badan mise dikrigaa fadli badan baynu maanta eegaynaa. marka bal marka hore aan kala qaadno oo aanu kala qaadno dikri iyo duco. dikrigu waa cibaado, cibaadooyinka waaweyn ee ilaahay lagu caabudo ka mid ah. ilaahay baana subxaanahu wa tacaala inagu amray dadka mu'miniinta ah in ay ilaahay xusaan, inay ilaahay ammaanaan, inay ilaahay dikrigiisa ku caabudaan. waxaa la yidhi caza wajalla: yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kathiira. kuwii alla rumeeyeyow ilaahay xus badan buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. sidoo kale alla wuxuu yidhi caza wajalla: wadkuru llaha kathiira lacalakum tuflixuun. ilaahay xus badan, dikri badan xusa, lacalakum tuflixuun, si aad u aflaxdaan. bani aadamka khaasatan mu'miniinta ilaahay rumeeyey, qof waliba qofkuu ka iimaan weyn yahay ayuu ka dikri badan yahay, kana duco badan yahay. sidaa uu alla yidhi: idkuru llaha kathiira lacalakum tuflixuun. iimaanka qofku markuu kordhaba, labadaa cibaado ee dikriga iyo ducadu qalbiga bani aadamka way ku koraan, oo waxaad arkaysaa qofba qofka uu ilaahay uga dhow yahay in uu ka dikri badan yahay, kana duco badan yahay. adiga qof haddaad isu fiirsato, innagu haddaynu shakhsi ahaan isu fiirsanno, qalbigeennu iimaankeennu maalinna wuu siyaadsan yahay oo meel saruu jooga, maalmaha qaarna waa daciif oo meel hoosu jooga. haddaad isu fiirsato waxaad arkaysaa maalinta iimaankaagu uu ilaahay ku dhow yahay in aad dikriga iyo ducada badsanaysaad is og tahay, oo xataa mararka qaarkood aad xasuusanayso nicmooyinka ilaahay ku siiyey oo aad ugu mahadnaqayso. sidaas darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ammaanay rag iyo dumarba kuwa xuskiisa badiya. waxaa la yidhi subxaanahu wa tacaala: wاdhaakiriina allaha kathiira wاdhaakiraat acadda allahu lahum makfirata waajran cadiima. rag iyo dumarba kuwii ilaahay xuskiisa badiya waxay helayaan makfira min allah, lahum makfiratun, waxay leeyihiin dembi dhaaf oo ilaahay u dembi dhaafo, wa ajran cadiima, iyo ajar weyn buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala siinaya. sidoo kale rasuulkeennii muxamed ahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh, sida abi hureyre laga soo wariyey fii saxiixi muslim, qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam: sabaqa almufariduun. qaaluu wama almufariduuna ya rasuula allah? qaala addaakiriina allaha kathiira wاdhaakiraat. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid ah, isagoo asxaabtii la jooga: sabaqa almufariduun. dad oo dhan waxa ka dheereeyey almufariduun. asxaabtii waxay yidhaheen: rasuulkii allow, almufariduun maxay yihiin? wuxuu yidhi: waa kuwa rag iyo dumarba ilaahay aad u xusa weeye, kuwa cid walba ka dheereeyey ee ilaahay raaligelintiisa, ilaahay maxabadiisa, ilaahay ilaalintiisa kuwa uga dheereeyey cid walba weeye. sidaas darteed dikrigu waxa weeye cibaadooyinka ugu waaweyn ayuu ka mid yahay ilaahay lagu caabudo.
ducadiina haddaynu iyada u nimaadno waxa weeye ducadu waa cubuudiyadda uu ilaahay inagu addoonsaday addoonsiga uu ilaahay inagu addoonsaday ee uu cibaadada inagu addoonsaday sumadeeda ugu weyn cubuudiyaddaa sumadeeda ugu weyni waxa weeye waa ducada weeye waayo ducadu marka uu qofku ducaysanayo ilaahay baryayo waa qiritaan uu qalbiga ka qirayo in aanu awood lahayn laa xawla walaa quwata ilaa billaah awood inaanu lahayn buu qofku qirayaa markuu baryayo ilaahay wuxuu leeyahy ilaahu anigu awood ma lihi ilaahayow waxaan anigu isu keeni karaa ma jirto oo wanaaga wax xumaan ah oo aan iska riixi karaa ma jirto sidaas darteed adiga ayaan ka hoosgelaya oo aan awooddaada ka raadsanaya wanaag oo dhan xumaan oo dhanna aan ka rajaynaya inaad iga riixdo ilaahayow subxaanahu wa tacaala sidaas darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi oo uu ku amray addoomihiisa wa qaala rabbukum adcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin ilaahay wuxuu yidhi caza wajalla ku amray addoomihiisa in ay baryaan wa qaala rabbukum adcuunii wuxuu alla ku amray addoomihiisa inay baryaan dabeetana wuxuu yidhi kuway barya astajib lakum kuwiina i barya waan u jawaabi waxa weeye waxay iga baryeen waan eegi doonaa ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin kuwiisa cibaadadayda mar wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ku bilaabay aayadda wa qaala rabbukum adcuunii ibarya buu ilaahay yidhi inteedan kalena muxuu alle haddana yidhi ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii kuwa ka kibra ay iskala weynaada cibaadadayda sayadkhuluuna jahannama daakhiriin waxay geli doonaan jahannama waanay ku waari doonaan isla aayaddaa mar muxuu ilaahay ku sheegay ducadii muxuu ku yidhi waa duco adcuunii astajib lakum mar labaadkiina muxuu yidhi ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii cibaaduu haddana ku sheegay ducadii isla aayadda gudaheedii ayuu ducadii marna u bixiyey duco ilaahay ku magacaabay marna uu ku magacaabay cibaado sidaas darteed baa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oo qur'aanka ah tarjumaankiisii uu ilaahay noo soo diray wuxuu yidhi adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaadada lafteeda wey cibaado oo dhan nuxurkeedu waa duca weeye buu yidhi ilaahay ayuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidoo kale wuxuu yidhi rasuulkeennu calayhi afdal asalaatu wasalaam laysa shay-an akrama cala allahi min adducaa ma jiro buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam shay uu ilaahay uga qadarin badan yahay ducada sidoo kale ducadu waxay u kala kacdaa laba noocood laba nooc bay u kala baxdaa ducaau hanaa wa ducaau mas'ala aw ducaau طalab waa ducaau hanaa la yidhaahdo athanaana micnaheedu waa ammaanta ilaahay la ammaanayo ducadaas oo ah ammaan ilaahay lagu ammaanayo asmaa'diisa iyo sifaadkiisa magacyadiisa iyo sifooyinkiisa uu ilaahay amray in lagu ducaysto walilaahi alasmaa'u alxusna fadcuuhu biha ilaahay wuxuu yidhi alle wuxuu leeyahay magacyo suuban oo uu jecel yahay in lagu baryo ee ku barya magacyadiisa suuban ammaanta ilaahay subxaanahu wa tacaala duco weeye rasuulkeenuna wuxuu yidhi calayhi salawaatu اllahi wasalaamuhu calayh afضal الducaaءi laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamd wa huwa calaa kuli shayin qadiir duco oo dhan waxa u fadli badan ereyadaas aynu akhrinay oo kulligood towxiidka ah laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamd wa huwa calaa kuli shayin qadiir duco oo dhan taasaa ugu fadli badan buu yihi nebigu calayhi asalaatu wasalaam sidaas darteed ayaa ambiyada haddaad u fiirsato ducooyinkooda
haddaad u fiirsato oo aad u kuurgasho waxaad arkaysaa ducooyinkooda inteeda ugu badan oo dhan inay tahay ammaan ilaahay la ammaanayo oo tawxiidkiisa iyo asmaa'diisa iyo sifooyinkiisa lagu ammaanayo nabiyullaahi yuunus markii uu nibirigu liqay ee uu ogaaday awood kale inaanay jirin isagoo ogaa marka horeba calayhi salaam ayaa wuxuu sii xaqiiqsaday nibirigaa gudihiisa uurkiisa markuu ku jiray inaan cid aan ilaahay ahayn oo ka badbaadinaysa aanay jirin bal u fiirso ducaduu ku ducaystay duco uma eka markaad u fiirsato qofka aan fahmaynin duco ulama eka wuxuu yidhi laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aldaalimiin wuxuu ku xusay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uu ku ammaanay towxiidkiisa laa ilaaha ilaa anta subxaanak towxiidkiisii buu ilaahay ku ammaanay inii kuntu min aldaalimiin wuxuu qarayna inuu dembi falay kabacdi ilaahay ducadaa uu ammaantaa uu ammaanay ayuu kaga nabadgeliyey oo ka soo saaray uurkii nibiriga ambiyada haddaad u fiirsato sidaynu hore u soo sheegnay ayuub oo kale markuu intaasoo sannadood bukay muxuu ku ducaystay wa ayuuba id naadaa rabbahu annii massanii aduru wa anta arxamu araaximiin wuxuu ilaahay ku ducaystay ammaan uu ammaanayo sidaas weeye ambiyada haddaad u fiirsato ducooyinkooda oo dhan nooca labaad ee ducadu waxa weeye ducaau mas'ala aw ducaau talab waa ducaau qofku mas'alo arrin uu ilaahay u hordhigayo oo uu leeyahay ilaahayow arrintaa ii fuli xaajo uu leeyahay addoonku oo uu ilaahay ka baryayo in uu ilaahay subxaanahu wa tacaala xaajadiisa u fuliyo waa ducaau mas'ala duca su'aal ah weeye uu qofku su'aalayo ama dalab uu ka dalbayo ilaahay in uu maalan nafci siiyo wax wanaag ugu jiro oo uu ilaahay ka baryayo inuu ilaahay siiyo oo u fuliyo ama uu ka baryayo ilaahay kashfu durin inuu ilaahay ka faydo dhibaato haysata ama uu ilaahay ka baryayo inuu ka nabadgeliyo wax uu ka baqayo inay soo gaadhsiiyaan dhibaato marka halkaasay ducadiina martay labadii ducadii iyo dikrigii markaa labadiiba waa cibaadooyin waaweyn keebaa sii fadli badan weeye labadoodiiba fadligoodii aragnay balse keebaa sii fadli badan waxaa sii fadli badan addikr waayo waxaynu idhi dikrigu muxuu yahay waa ammaan ilaahay lagu ammaanayo asmaa'ihi wa sifaatihi wa aalaa'ihi lagu ammaanayo magacyadiisii suubanaa uu yidhi igu ducaysta sifaadkiisii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala jecla ammaan lagu ammaanayo wey ducadiina maxay tahay waa su'aal uu addoonku ilaahay su'aalayo ka baryayo wax isaga u dan ah addoonka u dan ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyo sidaas darteed baa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man shaqalahu dikrii can mas'alati acطaytuhu afdala maa ucطiya asaa'iliin qofkii dikrigayga uu ka mashquuliyo inuu ibaryo oo wax i weydiisto uu mashquulay dikrigii ilaahay qur'aankii laa ilaaha ila allah subxaana allah alxamdu lilah dikrigii ilaahay baa ka mashquuliyey inuu baryoba qofka sidaas muxuu yidhi acdaytuhu afdala maa ucطiya asaa'iliin waxaan siiyaa wax ka wanaagsan waxaan siiyo kuwa wax i weydiista halkaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhigay dikrigii fadligiisa addoonku wax kasta uu weydiisto ilaahay kii dikrigiisa uu ka mashquuliyo wuxuu siinayaa allaala wixii addoomuhu weydiisteen wax ka wanaagsan isagoo aan weydiisanin addoonkaasu ilaahay ka weydiisan ayaa ilaahay wuxuu u doorayaa wixii wanaagga ugu jiro sidaas ay tahay labaduba waa cibaadada ducada iyo maxay dikriga labaduba waa cibaado aad u waaweyn dikrigaana ka fadli badan ducada balse ilaahay wuxuu ina baray in marka la baryayo
labada la israaciyo ducada iyo in la israaciyo dikriga wuxuu alla inagu baray suurat alfaatixa suurad acdam suura fi lqur'aan baa ilaahay wuxuu inagu baray sida loo ducaysto wuxuu alla yidhi caza wajalla alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin suurat alfaatixa alraxmaan alraxiim maaliki yowmi ddiin iyaaka nacbudu suuraddaa intaa u horeysaan iminka akhriyey kulligeed waa ammaan ilaahay la ammaanayo intaa waxa raacsan ee ka dambeeya suuraddaa ilaa dhammaadkeedu ilaa waladaaliin waa duco ama baryo ilaahay la baryayo wa iyaaka nastaciin marka laga bilaabo ilaa iyo dhammaadka suuraddu waa baryo ilaahay la baryayo sidaasuu ilaahay inaga baray qur'aanka in marka hore siduu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam yidhi waa inaad baridaan waa inaad ilaahay ammaantaan ka bacdina aad maxay ahayd wixii aad mas'alo haysataan ama ilaahay ka baryaysaan aad weydiisataan ninbaa maarin sida laga soo wariyey buraydat alaslamiyi radia allahu canhu ardaa wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam maqlay maalin nin ducaysanaya oo ilaahay ku baryaya ereyadan wuxuu qofkaasu yidhi ninkaasu yidhi allahuma inii as'aluka biannii ashhadu annaka anta allahu laa ilaaha ilaa ant alaxadu asamad alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad deetana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sida waladii nafsii biyadih laqad sa'ala allaha biismihi alacdam alladii idaa duciya bihi ajaaba wa idaa su'ila bihi acطaa wuxuu ilaaha naftaydu ay gacantiisa ku jirto ayaan ku dhaartay ninkaasu wuxuu ilaahay ku baryay ismullaahi alacdam idaa duciya bihi ajaaba qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku barya ismullaahi alacdam ilaahay wuu u jawaabaa wa idaa su'ila bihi acطaa wixii la weydiistona ilaahay magacaa lagu weydiisto wuu siiyaa qofka ku weydiista buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dhinaca kale haddaynu ka eegno nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ina baraya sida loo ducaysto ayaa maalin wuxuu arkay nin ducaysanaya oo aan ilaahay marnaba ammaanin nebigana calayhi salaatu wasalaam aan marnaba ku salliyin dabeetana rasuulkii wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam cajala haada uu degdegay ninkaas dabeetana wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء qofkii idin ka mida ee tukanaya ilaahay baryaya waa inuu marka hore ammaanta ilaahay ku biraabo nebigana ku salliya calayhi salaatu wasalaam ka bacdi wuxuu rabo uu ilaahay weydiisto sidaas weeye qofkii aan ku bilaabin ammaanta ilaahay salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu noqonayaa qof degdegay oo ka booday qayb dhan oo u keeni lahay in wuxuu ilaahay ka baryayo ilaahay siiyo oo u ajiibo marka waxaynu haddana isweydiinaynaa qur'aankii kariimka ahaa iyo dikrigii aynu nidhi uu ka fadli badan yahay ducada keebaa koreeya keebaa sii fadli badan qur'aanka kariimka ah iyo dikriga ilaahay keebaa sii fadli badan alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin qur'aanku waa hadalkii ilaahay weeye waa qowlu llahi caza wajal waa kalaamkii ilaahay ee addoonka akhriya xaraf keliya oo ka mid ah uu 10 xasano ka helayo waa maxay ahayd wax loo dhigaa ma jiraan qur'aanka kariimka dikri oo dhan isagaa u sarreeya waana dikriga laftiisu waa qur'aanka wey marka qur'aankaa koreeya oo aan shaki ku jirin laysmana barbar dhigi karo dikriga iyo qur'aanka balse waxaa jira marar qaarkood halkuu qofku qur'aanka akhriyi lahaa inuu dikriga akhriyo ay ka fadli badan tahay marar maxaa ka mid a qofkii oo qur'aankii akhriyayoo dhexda kaga jira haddii uu mu'adinku aadaanka bilaabo
waxa fadli badan markaa inuu qofku joojiyo qur'aankii uu akhriyayey ee dikriga ka fadli badnaa oo uu wixii uu mu'adinku lahaa ka daba yidhaahdo siduu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ina baray xaaladaas oo keliya maalan dikrigaa ka fadli badan qur'aanka waayo sababtu waxa weeye dikrigaas wakhti buu leeyahay hadduu ku dhaafana ajarkii aad heli lahayd iyo fadaa'ilkii aad ka heli lahayd wuu ku seegayaa saas darteed baa ilaahay inoogu fasaxay dikrigiisii ugu weynaa marka lagu jiro oo qur'aanka ah in markay xaaladaasoo kale dhacdo intoo la joojiyo laga faa'iidaysto jaaniskaas dabeetana qiraa'adii qur'aanka lagu noqdo waxaynu leenahay ilaahay haynaga yeelo kuwiisa ilaahay dikrigiisa xusa haynaga yeelo kuwii daakiriina shaakiriina kuwii ducaysta ee ilaahay ducada ka aqbalo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh